kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa markan doonaysa inay soo qaadato ciyaaryahanka lagu magacaabo Manolo Caballini kaasoo hadda ka tirsan naadiga Southampton oo markaa u ciyaaraya. AC Milan ayaa ciyaaryahankan ku doonaysa qaab amaha inay ku soo qaadato, waxaana laacibkan uu qayb ka yahay ciyaartoyda naadiga kubadda cagta Southampton isagoo bandhig wanaagsan ku sameynaya kooxda kubadda cagta ee Southampton. Xidigan oo kooxo dhowr u soo ciyaaray horyaalka dalka Talyaaniga ayaa hadda ka tirsan naadiga lagu magacaabo Southampton oo ku soo biiray xilli ciyaareedkii 2017. Sampdoria, Napoli, Bologna, Juventus iyo Atlanta ayuu hore ugu soo ciyaaro waana ciyaaryahan garanaya horyaalka dalkaasi Talyaaniga. Xidigan lagu magacaabo Manolo Caballini ay doonayaan in bisha January ay qaab amaha ku soo qaataan kadibna ay si toos u wareegaan haddii bandhigiisu uu cajiib noqdo. Agaasimaha dhanka sportska kooxda kubadda cagta AC Milan ninka lagu magacaabo Leonardo ayaa doonaya in uu Caballini dib ugu soo celiyo Serie A horyaalka dalkaasi Talyaaniga. Kooxda kubadda cagta AC Milan oo hadda qayb ka ah kooxaha horyaalka dalka Talyaaniga kuwa markaa kaalmaha sare u tartamaya waxay doonayaan inay markaa muujiyaan inay yihiin kuwa u tartami kara. Hadda waxay ku jiraan kaalinta 5aad iyagoo doonaya inay mar labaad dib ugu soo laabtaan horyaalka dalkaasi Talyaaniga fasaxa Christmaska kadib. Waxay doonayaan inay sameeyaan bandhig wanaagsan horyaalka dalkaasi Talyaaniga oo ay soo ciriirsadaan kaalmaha ugu sareeya.